waxay ahayd xaalad murugo iyo amakaag xambaarsan kolkii uu soo dumay dabaq ka koobnaa 3 biyaano oo ku yiilay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. caruur, hooyooyin iyo dad da ah ayaa u hoos maray burburka dhismaha oo la sheegay in uu ahaa mid qadiimi ah. sawaxanka ooyin iyo qaylo meel dheer ah ayaa mar qura isqabsaday. dadkii ka ag dhawaa goobta ayaa ku soo baraarugay arrintan iyaga oo markiiba gurmad degdeg ah u fidiyay dadka musiibadu ay ku dhacday. tiro dad ah ayaa laga soo badbaadiyay burburka dhismaha hoostiisa, kuwaasi oo isugu jira caruur iyo haween, halka tiro kalena ay ku nafwaayeen dhacdadan sida goobjooge uu u sheegay warbaahinta. meeshan masiibada ka dhacday degmada Xamarweyne waa masiibo rabbaani ah. aniga waxaan ka imaaday meeshan la yiraahdo farmashiya Bukuweer. waxaan soo maray meesha falka uu ka dhacay luuq agtiisa waa meesha sariiraha lagu gado dhabarka dambe ee saldhigga Xamarweyne. markaan soo maray meesha waxaan imaaday meeshan la yiraahdo wadada. marka wadada imaaday durbadii waxaan maqlay dabaq iyo waxaan arkay dab oo ma aragtay cirka isku shareeray. saa marka dhayn ana xataa laba tilaab amal cararay anigoo markaas ma aragtay isleeyahay gadaashaada ma aragtay wax ulsama ka dhacay say amaleysay wax u jiraan. durbadii marka meesha arkay wax ma aragtay waxaan arkay gurihiyo dumay. guriyaha wuxuu ka koobnaa 5 biyaan oo ka koobnaa. kadibna waxa imaaday ma aragtay dadka gargaarka oo fidiya waxa laga soo saaray 12 caruur ah iyo hal oday ah laga soo saaray. marka ayna bad qabeen ilaa haddana waxa ku jira hoos ma aragtay dad badan markaas la yiraahdo in ay meesha ay ku hoos jiraan. waxa ma aragtay dhacdada waxay dhacday 2 saac iyo bar meelahaas ay ahayd oo ma aragtay kadibna waxa imaaday gurmadka degdega ah imaaday ilaa haddana waa tan u jeedaan gurmadka laga sameeyay goobta. waxa ka dhacay xaalka sidoo markay waxaan xaqiiqatan waxaan huwa waxaan meesha aniga ahaanteeda aan ku soo dhaafay ilaa iyo 2 ruux markaas ma aragtay meesha isku soo garab dhaafnay midna dumar ahayd midna ma aragtay cunug yar oo ma aragtay 5 jir oo ahaa saas u soo garab maray. marka inta imaadan ma aragtay waxaan arkay ma aragtay meeshii oo duntay meeshan maqaaya ka furneed oo gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa soo gaaray goobta iyadoo isbitaalada Muqdisho loo daadgureeyay dad qaarkood xaaladoodu ay aad u liidato. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dhacdadani. dhinaca kale caawa roobabkii iska daba socday dartood waxaa dumay guri 3 dabaq ah ayaa degmada Xamarweyne ku soo dumay. gurigaas dad badan ayaa deganaa. maamulka gobolka Banaadir iyo gaadiidka degdega ah dabdamisyada iyo ambalansooyinka baalooyinka forlifyada kullu waxa meesha la isugu tagay maamulka gobolka wixii hadda Xamar joogay. nasiib wanaag marka 17 qofood ayaa laga soo badbaadiyay oo 5 qof ay tahay dhaawacyo aad u fudud isbitaalada loo qaaday. marka intii kalena ayagoo bad qaba ayaan qofkii ugu dambeeyo haweeneyda ah ayaan ka soo saarnay. dad ayaa wali ku hoos jira burburka dhismaha soo dumay iyadoo wali baadi goob loogu jiro. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.